waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal kusoo dhawaada janalka wadajir online oo aad aalaaba uga barateen casharada la xiriira cryptocurrencies, lacagaha digitalka ku shaqeeya iyo programmada la xiriira forexka iyo barnaamijyada kale oo la midka ah. Halkan maanta waxaan idinkugu soo gudbi doonaa sida loo sameysto Binance sidee loo sameystaa ayaan halkan ku qaadan doonaa. Waxaan soo kicinaynaa linkiga Binance meesha noo yaalo. Cidda aan subscribe noo saarin channelkeena subscribe ha saaraan, like noo saaraan, share ha dhahaan. Linkiga Binance halkan buu noo yaalaa, waan kusoo dhufanayaa. Wuunoo keenay marka wuxuu dhahay where do you live, intee ku nooshahay, meesha ku nooshahay ayaa sheegaysaa. Soomaali baa noo dooran, confirm adeena. Wuxuu ku leeyahay register, you are invited to Binance. Waxaa lagu casuumay Binance. Register with your email or mobile. Mobileka isku diiwaangeli ama wuxuu ku dhahay emailka isku diiwaangeli. Marka waxaa isku diiwaangelinaynaa by email. Emailka waan geliyay, passwordka bay iga rabaan. Passwordka waan geliyay, agree baan dhahayaa. Passwordka waa inuu noqday leeyihiin 8 characters with uppercase 1 number. Sidee rabaan baan uga dhigaynaa. Passwordki waan iska jaray, passwordka hadda waan geliyay. Marka I agree baan dhahay to receive email updates from Binance. Waan ku raacsanayaa dhahay inay soo gaaraan waxyaabaha update-ka Binance la xiriira inay soo gaaraan. I have read and agree to Binance terms. Waan taageersanahay leedahay, waan ku raacsanahay Binance termskeeda shuruucda ay leedahay. Marka waxaan dhahayaa create account. Inaad tahay human iyo inaad tahay robot ayuu ka rabaa confirmation. Bahalkan baa soo jiidaysaa, waxaad dul saaraysaa sawirkan kale, si toos baad dul saaraysaa. Email verification buu naga rabaa, emailka baan soo kicinaynaa. Emailkii baan soo socdaa.
waxaan naga dhamay inaan dhahno get code inaan dhahno. haddaan fiirinaynaa waana soo dhaawaa kanaa Binance confirm your registration. marka numbradan aan soo qaadaynaa gelinaynaa kadib waxaan leenahay submit. email verified ayuu dhahay, emailka waa la verify gareeyay. welcome to Binance ayuu ku dhahay. Binance waana soo kacay. marka waxaa laga doonayaa you are required to complete intermediate verification to access Binance service. waxaa laga rabaa inaad sameyso verification, inaad sameyso baa laga rabaa. passport baa laga rabaa iyo facekaada bay sawirka qaadayaan, inaad si sax ah oo inaad u gelisid bay kaa rabaan. sawir oo passport oo reflection bixinayo oo maraba sawir clear oo passport bay ka rabaan inaad gelisid. marka intaas baa ka dhiman akoonka inuu complete ku noqdo. verify markay ku dhahaan passportkaada, markay aqbalaan kadib ayaad shaqeysan kartaa. intii ka horeysa wax hore oo Binance la xiriira trade ma sameyn kartid, lacag ma lagu soo diri karo, lacag ma diri kartid, way ka xayiran yihiin. verificationkaas baa laga rabaa. marka walaalayaal saas ula socda. wixii aad fahmi weysaan oo dheeraad ah ila soo xiriira, comments isoo dira, channelka subscribe noo saara. linkiga Binance-gana hoos baan idin soo dhigaa, videoga hoostiis baan soo dhigayaa ee halkaas kala socda walaalayaal. halkaas baan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkii koobnaa ee aan uga hadlayay sida loo sameysto Binance. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.